عيدا ما انت عيد ونكسن عيدا. Okay. Dhamaystirmayna runaatii lyricskayga oo dhammaystiran sida awgeed السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بداوديال كسو دوادا كنالك إسلاميك تكنولوجي مقاعي وعبسلان أبو بكر إن أصحابتي نقول حلان رناتي وحين بريها أنت بكسو هاد لاني أبليكيشن لو يقانا كاينا ماستر أو أبليكيشن لغو إديت كرياما لغو هبايا مقالة رنانتي waxaynu soo dhiganay 17 oo hore ayaynu soo dhiganay kana waa 10kii 8aad runantii sida awgeed 10radii hore hadii aad u baahan tahay commentiga ugu horeeya insha Allah taala ayaad ka heli doontaa 10radii hore oo dhan sidoo kale application kan oo free ah ayaad ka helaysaa 100% oo aan lahayn wax watermark sida awgeed waxaan rajeynaya insha Allah taala dhamaantiin inaad fahanteen waxaan insha Allah taala aan ka hadlayo marka application kan runantii waa application runantii wax badan lagu qabto isla markaasna waa application runantii professional video editor ama waa applicationada runantii ugu wacan ee wax ugu fiican ee wax lagu edit karayo casharadii hore runantii inaad soo daawato ayaan kugula talinayaa si aad muuqaalada u habayso ama aad u edit karayso insha Allah taala sida awgeed casharka 8aad ayaynu ku sii soconanaa insha Allah taala maanta waxaanu baranaa wax loo yaqaan lyricska sida awgeed lyricska waxa weeyaan heeso kaliya lyrics laguma sameeyo sida gabayada oo kale ayaa lagu sameeyaa lyrics runantii inta aan fahansaneyn hadii aan fahansiis iraahdo waxa weeyaan runantii gabay iyo qoraalkiisa oo wada socda ama codka iyo runantii qoraalka oo hal mar wada imanaya shaashada ayaa loo yaqaanaa runantii lyrics ha ahaado gabay ama ha ahaado wax kale ama ha ahaado heeso dhamaantiin insha Allah taala inaad fahanteen waan rajeynaya insha Allah taala si aynu u tasdigareynana halkan insha Allah taala soo furayna halkaas markaan soo furno kadibna raashideena dooran jirnay tan ay ahayd company iska dooranayna inta kadib waxay noo soo baxday shaashadan madow ayay noo soo baxday sida caadada inoo halkan ay ku qoran tahay media ayaynu ku dhufanaynaa si aynu wax ugu soo darno insha Allah sida awgeed background ayaynu insha Allah taala ku soo dari doonaa background ayaynu insha Allah taala ku soo dari doonaa sida awgeed background kaas ayaan ku soo darayaa kadibna qaabka background loogu soo daro hore inuu soo dhiganay sida awgeed halkan baynu xoogaas u yara jiidanaa timeline-ka okay kadibna wax ku soo darsan kartaa codkii iyo runantii iyo sawirkii halkan aad soo dhigi doonto iyo qoraalku halkan ku qormi doono insha Allah taala ayaad insha Allah taala sameyn doontaa sida awgeed hadda aniga cod ma hayo laakiin codadka halkan laga soo daro inta u baahan hadii codka hees ama codka gabay aad hayso halkaas insha Allah taala kaga soo dari doontaa kadibna halkan runantii waxa weeyaan waxyaabaha cod ku jira mobile-kaaga oo dhan ayuu halkan iskugu keenaya kulba mid hadaad taabato kuwa aad duubtay ha ahaadaan ama kuwa si kale aad soo download gareysatay ama si kale aad mobile-kaaga ugu shubatay sida awgeed hadii aad codadka muusigana meelahan laga soo download gareystaa laakiin diyaar uma ihi ehelna uma ihi runantii sida awgeed halkaas ayaan insha Allah taala ku dhufan doonaa waan iska xiri doonaa cod hadii aad rabto halkan insha Allah taala isagana aad ka duubi doontaa marka sida awgeed anigu hadda labada midna ma hayo diyaarna uma ihi inaan cod duubo codna iguma jiro aan runantii lyrics aan ku sameeyaa sida awgeed waxaan sameyn doonaa muuqaal ayaan soo gelin doonaa muuqaalkaas codkaynu kala xari doonaa muuqaalka waynu delete gareyn doonaa insha Allah sida awgeed halkan layer ay ku qoran tahay insha Allah taala ku dhufanaynaa halkan markaan ku dhufano kadibna waxaan ku dhufanaynaa halkan ay ku qoran tahay media kadibna waan nagan ku soo darnay runantii muuqaalkii ayaan ku soo darnay sida awgeed muuqaalkaas aynu shaashada u leegaysiina halkan aynu ku dhufan jirnay kadibna taa koorna aynu ku dhufan jirnay kadibna shaashada ayuu muuqaalku saas oo kale u soo leegaanaya kadibna halkaas baynu ku dhufanaynaa halkaas baynu tigaraynaa sida ku muuqata runantii hadda muuqaal baynu arkaynaa hadda u fiirsato gebigiisa waa muuqaal iyada lafteeda lyricska waxa weeyaan waa codka iyo runantii iyo qoraalka insha Allah taala sida awgeed bal waynu daari doonaa marka hore iyadu lyrics ahayd sida awgeed bal in eegno okay sida ku muuqata codka iyo wax wada socda runantii qoraalka kan oo kale ayaan insha Allah taala sameyn doonaa sida awgeed qaybtan hore waa intro aniga mar hore YouTube-kayga soo geliyay waa hees bila music ah sidoo kale xalaal ah sida awgeed bal xaqan baynu u socon doonaa oo waxaanu iska jari doonaa qaybtan hore introga hadaynu daawano introga muuqaalka ka soo horeeya muuqaalada waa waxaas weeyaan sida awgeed intro inaan daawado hadda diyaar uma ihi sida awgeed waan iska dhaafi doonaa halkaas wixii ka dambeeyaan jari doonaa sida loo jaro waad garanaysaa isla muuqaalka taaban doontaa kadibna halkan kad ay ku qoran tahay ku dhufan doontaa kadibna split kaas aad ku dhufan doontaa ama kan kale kolba ka jeceshay anu waxaan ku dhufanayaa tusaale ahaan split kaas aan ku dhufanayaa waan daawanaynaa kadibna waxaan sameyn doonaa qaybtan inuu iska delete gareyn doonaa
kadibna muuqaalkeenu qaban doonaa xaggan inuu soo riixi doonaa ilaa dhamaadka inuu soo gaarsiino insha Allah. Imika dhamaadka markaynu kusoo gaarsiino hore aan yar wado. Okay, si fiican baad arkaysaa codkiisa oo si fiican baad u maqlaysaa. ninkan waa nin caana cid kastaba insha Allah taala inay garanaysaa insha Allah taala rajeynaya sida ogeed isaga falanqeyn mayno sida ogeed halkana waynu ka jari doonaa muuqaalka kadib markaynu halka maqaskeenu ku dhufan doonaa kadibna qaybtaasaynu trim garayn doonaa qaybta koornaha ayaynu ku dhufan doonaa si ay qaybtan oo dhan ay ugu go'do sida ogeed halkaas ku dhufan doonaa kadib muuqaalka halkaas ku dhamaaday hadda muuqaalku waa halkaas ku dhamaanaya background ku dhamaanayo sida ogeed insha Allah taala waxaan sameyn doonaa muuqaalka waynu iska delete garayn doonaa insha Allah taala kadibna waxaan ku soo dari doonaa insha Allah taala codkeenu la soo hari doonaa marka si aad codka iyo muuqaalka u kala saarto kan halkan timeline markaynu timeline kan iraahdo markaynu eegno halkan markaynu eegno kani waxa weeyaan background-kii haddaynu taabano kan ku sii xigaana run ahaantii haddaynu taabano waxa weeyaan waxa loo yaqaano muuqaalkan weeyaan aan soo duldhignay sida awgeed waxaan taabanaynaa haddii ilaahay yidhaahdo background-kiina saa u taabanaynaa kadib markaan background-ka taabano waxaan oo dhan optionadan oo dhan ayaa halkan inooga soo baxaya kadibna falaadha kor bay saasaynu u riixaynaa sare saa kor baynu u riixaynaa ilaa aan gaarno halkan dhamaadka ay ku qoran tahay audio extract audio halkay ku qoran tahay kadibna halkan markaa ku dhufato waan ku dhuftay hadda codkii waxa kala baxay run ahaantii iyo muuqaalkii kan hoose waa cod run ahaantii buluuga ah sida awgeed ama akhtarka ah sida awgeed codka gaar baynu u dhili garayn karnaa muuqaalkana gaar baynu u dhili garayn karnaa markaa muuqaalkeenu taabanaynaa kadib markaynu muuqaalka saas oo kale u taabano delete baa halkan inooga soo bixi doonta delete kaasaynu ku dhufanayna insha Allah hadda sida ku muuqata hadda sida ku muuqata meeshan wax sawiri ma soo yaalaan background-kan soo dhigno kaliya ayaa yaala sida awgeed wax run ahaantii cod la yiraahdo baa meesha yaala run ahaantii laakiin wax kale meesha ma yaalaan sida awgeed bal sawirkiisaynu ku soo daraynaa qoraalkeenu meesha ku qoraynaa waxoogaa effectiyada ku qoraynaa waynu yar qurxinaynaa insha Allah sida awgeed halka codka caalamka oo dhan uu ka bilaamayo intaas waynu iska jaraynaa inta kale okay halka caalamka oo dhan split line kan markasta isticmaalaysaa split line kaas meesha uu istaago ayaad ku jari doontaa kadibna waan taabanayaa codka kadibna waxaan leeyahay codka markaan taabto kadibna hoos ayaa runaantii codka kaliya markaan taabato halkan maqaska kuma soo istaagay halkan kuma soo istaagay sida awgeed saasaad u riixi doontaa hoos markaad gaadho ayaad meesha trim ay ku qoran tahay ama split ayaad ku dhufan doontaa kadibna waa split garaynaynaa labaynu u kala jaraynaa qaybta hore waan iska jaraynaa codka hore kadibna background-kan isagna sidoo kale kala jari doonaa insha Allah kanu kala jarno qaybta hore iska dhili garayn doonaa sida awgeed hadda codku markaas ugu dhufata wuxuu ka bilaabmaya halkan sida awgeed bal waxaan sameyn doonaa labada beeyda ugu horeeya ayaan lyrics insha Allah taala aan ka dhigi doonaa sida awgeed halkan aan ku dhufan doonaa si aan sawirkiisa ugu soo darno kadibna halkaas aan ku dhufan doonaa media kadibna gallery aan sawirkiisa kaga soo dari doonaa kadib sida muuqata sawirkiisa aan ku soo daray kadibna halkan aan soo dhigay halkaas ma sawirkiisa dhigaya sawirkiisa qaabkaas ayaan ku soo daray kadibna sawirkiisa halkan timeline kaas aan isku leegaysiino waan jiideynaa ilaa dhamaadkan gaarsiinaynaa saas loo jiidaa ilaa dhamaadka markaan gaarsiino kadibna balse waxaan ku qoraynaa qoraalkii insha Allah taala waan bilay garaynaynaa waxa uu yiraahdaa insha Allah taala ku qori doonaa intaasaan israacin doonaa caalamka oo dhan waa maalin caan oo caadina siya ciida sida awgeed halkan ku dhufan doontaa marka halka ay ku qoran tahay layer kadibna si aad tagaska aad ku soo darto halkan aad ku dhufan doontaa insha Allah taala ay ku qoran tahay t kadibna halka wax ku qori doontaa caalamka oo dhan kadibna waynu ku soo qornay qoraalkii baynu ku qornay kadibna markaan qoraalka ku qornay qoraalkii saas u dheeraaday sida awgeed waxaan sameyn doonaa qoraalka waynu habeyn doonaa horta marka ugu horeysa qoraalka colorkiisana waynu bedeli doonaa laakiin intaan habeyn bal colorkiisa aan isku dayno inaan bedelno nooca qoraalkana sidoo kale waan bedeli karnaa halkan aynu ku dhufan doonaa ay ku qoran tahay haddaan nooca qoraalka aan bedelano tii weliba tan inoo select garaysan tahay kadibna labada markaynu ku dhufano qoraalka kaala kaan dooran karnaa tusaalahaan kanaan dooranayaa waa tusaale un kadibna xagga colorka haddii aad rabto inaad bedesho halkaas ku dhufan doontaa insha Allah
sida awgeed halkaa markaa ku dhufato tusaalahaan waxaan ka dhigayaa red ama casaan ayaan ka dhigi doonaa kalaraantana mid kamid ah ma taabanaysaa kadib markaa taabato kalaraantana aad taabato halkaa ku dhufan doontaa insha Allah anigu casaan baan hadda doortay ama guduud kolba sidaa u taqaano kadibna qaabka uu yahay waad arkaysaa qoraalkan ayaan dib u edit gareyn doonaa si aad qoraalka u edit gareyso aad u jarjarto ama qoraalka aad runaantii mid gaagaaban halkan laymana aad uga dhigto halkan aad ku dhufan doontaa insha Allah taala ay ku qoran tahay keyboard halka calaamada keyboard ay ku qoran tahay kadibna caalamka oo dhan ay halkaa ku qoran tahay caalamka oo dhan si fiican aan u qoro aan dhamaystiro qoraalka caalamka oo dhan halkay ku qoran tahay waa bait sida awgeed halkaas baynu ku dhufan doonaa halkaas aynu line-ka u kala jebino kadibna waa maalin caan oo halkaas aynu kala jarana iyadana qaabkaas aynu insha Allah taala aynu sameeynaa kadibna okay baan siinayna kadibna waxoogaa baan soo yar weyneynaa weliba farta inaan black ka dhigaaba kasii qurux badnaan lahayd ama madow farta bal madow aan ka dhigo insha Allah black aan ka dhigo kolbas aad taqaano aniga taas ayaa ila qurux badan adiga tii doonta ayaa kula qurux badnaan kartaa sida awgeed farta halkaas baan runaantii ku qoray kadibna waan balay garaynaynaa halka uu ku joogay halka split line ka uu ku joogo ayuu runaantii ku joogaa codkaasi ciida kadibna tagaskiina waynu dhaafnay qoraalkiina halkan aynu dhaafno halkan kama muuqdo sida awgeed qoraal tagaskiina soo jiidin doonaa waynu isleegaysiin doonaa insha Allah tagaskaynu qaban doonaa kadibna waxoogaa baynu soo jiidaynaa halka ciida ay ku okay si fiican na fahanteen insha Allah taala waan rajeynaya bal dib u soo balay garayo good si fiican buu soo bilaabmaysaa laakiin waxa loo baahan yahay markay soo galayso in animation ku timaado markay baxaysana animation ay ku baxdo sida awgeed waan taabanaynaa tagaskaynu taabanayna si animation aynu ugu darno ama dhaqdhaqaaq animation ka hore inuu soo dhiganay intii nagu xidhnayd kadibna halkaas aan ku dhufan doonaa in animation ay ku qoran tahay kadibna waxaan ka dhiganaa mid right ka soo baxaya ama xagga ka soo baxaya midigtiisa kadibna balloon dhageysan doonaa okay kadib insha Allah taala waad arkaysaa runaantii qaabka runaantii markaynu bilaabina ay soo boodayso kadib waxaan samayn doonaa markay dhamaanaysana animation baynu ku dari doonaa insha Allah taala markay dhamaanayso balloon eegi doonaa uu boodi doonaa qoraalka hal mar buu qoraalkii big yidhi marka waxa la rabaa inuu tartiib u sii baxo sida awgeed tagaskaynu dooranaynaa si animation aynu ugu darno tagaska markaynu taabano kadibna out animation halkay ku qoran tahay insha Allah taala ku dhufan doonaa halkaas out animation ay ku qoran tahay kadibna waxaan ka dhigi doonaa isagana left in mid xaga u noqonayo insha Allah taala great si fiican baad runaantii u arkaysaan qaabkaas ayaa runaantii loo sameeyaa beedka kale ku xiga insha Allah taala samayn doonaa beedka ku xigana waynu daari doonaa ciida maanta ciid wanaagsan ciida kadibna tagaska baynu ku qoraynaa halkan aynu ku qoraynaa maanta ciida maanta aynu ku qoraynaa haddana beedadka qaldi saas ayuu qornayd bal dib aynu dhageysanaynaa okay si fiican baan u soo qoray kadibna halka ay ka soo bilaabmaysaa wayna leegaysiiyaa meelahaas ka soo bilaabmaysaa okay meel fiican bay ka soo wada bilaabmeen xogaa meelahaas bay ku dhamaanaysaa bal waan eegaynaa kadibna okay kadibna waxaan ka dhigi doonaa black baynu ka dhigi doonaa kalarkeeda sida aynu hore uga soo dhignay kalarkaa doontaa ka dhigi kartaa adiga laakiin aniga kalarkiisa madow ayaan ka dhigi doonaa sida awgeed tagaskana waynu bedeli doonaa tagaska marka hore aan doortay kan ayuu ahaa oo isku eegaysiisanaya aniga animationkii baan ku darayaa kadibna waynu eegi doonaa right baynu ku daraynaa markuu out animationka uu yahayna insha Allah taala waxaan ku dari doonaa mid leftiya sidii kii hore kale baynu u sameynay kadibna labada waynu dhageysanaynaa okay dhamaystiri mayna runaantii lyricskayga oo dhamaystiran sida awgeed
waxaan samayn doonaa insha allahu tacaala qaabkaas loo sameeyaa gabayda iyo codadka kadibna waxaan samayn doonaa insha allahu tacaala waxoogaa effectiyayno halkan kaga dari doonaa iyo halkan sida awgeed waxaan samayn doonaa waxaan ku dhufan doonaa halkan backgroundka ayaa saa loo taabtaa si aad effectiya ugu soo darto kadibna backgroundka markaan taabano waxyaabo kale inoo soo bixi doona halka waxyaabo fara badan baa inooga soo bixi doona sida awgeed halkaas waxaas ayaa saaid ku ah runtii ama waxyaabaha ku muuqda waxa star kale ayaa ku muuqda oo effectiyada kadib markaad taabato effectiyadaasi qaarkood waa qaar aan soo download gareystay kuwa kalena waxay ahaayeen kuwa hore iga sii jira sida kuwan oo kale waan soo download gareystay kuwa ay ku qoran tahay runtii landscape iyo right kuwa ay ku qoran tahay light garowga laakiin kuwan kale waxa u badan waxyaabo igu jiray sida awgeed haddii aad rabto inaad la soo degto qaar kamid ah hoos ayaad u socon doontaa halkan ay ku qoran tahay get more ayaad ku dhufan doontaa si aad ula soo degto effectiyada marka effectiya fara badan baa meesha ku jira hadda internetku ima furna sida awgeed runtii waxaad ula soo degi kartaa qaabkeena ula soo degnay tagaska iyo waxyaabaha hore usoo aragnay qaababka loola soo dego waad garanaysaa meesha download ku qoran tumaad ku dhufanaysaa kaliya intaas ma sugaysaa uu soo degayo kadibna waa isticmaali kartaa sida awgeed aniga waxyaabahan isticmaalo waxa kamid ah kan ay ku qoran tahay dhamaantood waa tasdigarayn doontaa qaar badan oo tasdigarayn doonaa kaas ayaynu insha Allah ayaan isticmaalaa laakiin bar kuwan kale aan ku tuso qaabka loo isticmaalo tusaale ahaan kan ay ku qoran tahay powerful ayaan insha Allah taala ku dhufan doonaa kadibna bal waan eeginaa hoosta sidoo ka noqday markaan ku dhuftay markaan taabtay hoosta waxoogaa yar wuxuu ku yeeshay isbedela kadibna kan qaabkaas uu noqonaya oo hadeen imka aan sidaa ku daayo balay gareeyo tusaale ahaan hadii aan ku daayo qaabkaas uu noqonaya runtii marka kan kuma qurux badna runtii kadibna mar labaad ayaan taabanaya kadibna halka baan ku noqonaya kadibna waan kala noqonayaa ama waxaan tagayaa waan ka noqonayaa halkan kadibna waxaan tagayaa tusaale ahaan aniga kan oo kale tusaale ahaan igu jira kaas ay ku qoran tahay kaasaan ku dhufanayaa kadibna bal imika waan dooranayaa kaas qaabkaas oo kale runtii noqonayaa anigu kan oo kale ayaan jeclahay sida awgeed adigu waad tasdigarayn doontaa waxyaabahan aan ka sheekaynayo oo dhan yani sheeko kugu noqon runtii waa inaad practical ka dhigtaa runtii hareeraha waxaad moodaa in ay daruur ay wareegayaan sida awgeed waxoogaa yaroo animation iyo dhaqdhaqaaqa bay u samaynaysaa qurux badan haddii aad iminka saas oo kale ku balay garayso aad iyo aad buu qurux badan yahay okay yani qaabkaas oo kale runtii u shaqeysaa waliba asxaabta qiimiga badan leh ugu dambeyn waxaan ku daraynaa hadii ay baaha wadal inoo ogolaado effectiskana runtii meelahan dhow bay ku istaageen hadana xaggan hore u riixino meelahaas hadaynu gaarno effectiski imka lama arkayo sida awgeed effectiyadan waliba effectiyadan halkan wareegan sheegaya si aynu u sii wadno marka aad runtii soo gelinayso ayaad wada leegaysiin kartaa backgroundka hadii aanad fahmin halkan aad taaban doontaa halkan backgroundka laftiisa ayaa taaban doontaa kadib marka taabato halkan aad dib ugu noqon doontaa runtii wixii aad soo gashatay ama runtii effectiga soo gashatay ayaa taabanaysaa effectigi saas oo kale markaa u doorato imika halkaas yareecas ama gududkii waxay sheegaysaa ee tiktok ay saas u saaran tahay waxay sheegaysaa inaan ka aan dooranay sida awgeed kadibna way kala duwan hataa dad kuwan kala doorato waliba kuwan hataa doorato way kala duwantihiin way kala duwan yihiin sida awgeed waad halkan ku joogtaa halkan ku joogtaa sida ku muuqato effectiyadu bartaas ay ku joogan sida ku muuqato qaybtana jaalle ah qaybtana waa caadi sida awgeed halkan ayaad qaban doontaa saas aad u riixi doontaa ilaa backgroundka intuu dhamaanay leegaysiin doontaa hadii aad ugu wada tala gashay inuu dhamaantii uu leegaado ilaa dhamaadka ayaad jiidi doontaa anigu waad arkaysaa in runtii wada leegaysiyay sida awgeed saasaan u riixayaa halka ugu dambaysan gaarsiinaya kadibna waan tigaraynaya kadibna dhamaantii wada leeyahay imika xataa markii qoraalku halkaas ku dhamaanay markii qoraalka soo dhaafno timeline-kan qoraalka soo dhaafino runtii ilaa imika uu sii jira effectiyadii sida awgeed waad wada leegaysiin kartaa qodobkaas ugu dambeeyay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.